السلام عليكم أصحابتا ميل كستو الدنيا دعلada ka joogtaan waxaan idin leeyahay wad salaamantiin waa anigiyo Jaam Cabdixamiid markastoo waxaan u taaganahay qancintiina maanta waxaan idin wadaa application aad ku yareyn karto video MB-giisa haddii videogaaga MB-giisa uu yahay mid aad u sii sareeyo application-kan aan hadda ku hayo waad ku soo yareyn kartaa application-kana magaciisa iyo meel laga helo kulli waan idin soo gudbin doonaa kulli wuxuu yahay wuxuu ku samaysan yahay videoga aan guda galno insha Allah aad u isticmaasho waxaad u baahan tahay inaad heshid application-ka lagu magacaabo video cutter markaasaad waxaad sameynaysaa horta video cutter waa kana waxaadna kasoo degsan kartaa Play Store adiga qorayo video cutter marka hore waxaan soo fiirinaynaa videoga aan rabno in aan MB-giisa yareyno ayaan soo raadinaynaa marka hore okay dadka iska dhig waa 9.6 MB way 9.6 MB asiga ayaan rabnaa inaan yareyno mid kale ma laha video cutter halkan ayuu soo geli karaa haddii la yareynayo marka aan guda galno video cutter waxaan sameynaynaa meeshaan ay ku qoran tahay compress ayaad riixaysaa waxaad nabaysaa meeshuu ku jiro videoga ayaad soo qaadanaysaa adigoo ka dhigaya low markaas kadib waxaad sameynaysaa okay ayaad dhehaysaa processing ku guda jiraa ilaa iyo 2 daqiiqo mise 1 daqiiqo oo kale iska sug maasha Allah haddaa rabti inaad share garaysid share baad dhehaysaa hadda horta video waa inaad play dhahdaa si uu videogaada aa yareysay waa ka videoga menu si aan u aragno videoga inuu yaraado in kale application-ka ka bax waxaad galaysaa meeshuu video ku jiray max player midkan wuxuu ahaa 9.6 meeshan hadda new ay soo qorto ma jirtaa okay meequu noqday 2.5 asxaabta aad baad u mahadsantiin waa anigiyo walaalkiina Jaamac Cabdixamiid sidaan filayo waad aragteen aan malaynaa application-ka hadduu idin qanciyay like saar ha iloobin inaad subscribe dhaadid like-na aad saartid commentina aad kasoo dhiibtid mar walbo commentigaaga waa ii dhiirigelin subscribe haddaad dhaadid waa dhiirigelin ayaan ka qaadaya waad ku mahadsan tahay